haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaana soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf. xilli ay Soomaaliya hadhaysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su'aalo iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go'aankan waxaa lagu faahfaahiyey war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29 bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. la taliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo la xiriiray galka baaristu waxay beeniyeen eedaynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland. waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. dowladdu waxay mar kale 2 bishan December ku celisay eedayntii ay u jeedisay dowladda Kenya. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyay eedaynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya. intii Soomaaliya ka soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo dariska. laakiin taas bedelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda lagaga soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in lagu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. haddaba anagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno tanjiraheena la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29 bisha November ee hadda dhamaatay. maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaadheen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. si gaar ah waxa uu taabtay arrinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubbaland. waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa. waxaa la yidhi doorashaha la qabto sidaa ha loo qabto state waliba 2 meelood ha lagu qabto. aan idin weydiiya maanta guddi baa la iga sugayaa waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabanno waxaan samaynaa. waxaa noo qiran 2 caasimad gobol baa la yidhi inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabanno. Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa. dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba 2 meelood ku qabto. waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo 2 meelood ku qabanno. laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyada gobolka uu tago ee ku-xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan. mas-uuliyiinta gobolka Gado ee taageeray dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madoobe uu hogaamiyay ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya. sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedaynta ka timid Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. war-saxaafadeedkaasi oo soo baxay 30 November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya. waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadi'da caalamiga ah ee ay ka tashiga qarannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka gaar ahaan kuwa Afrika sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi.
hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahayd dadka Soomaaliyeed siyaasiyiin iyo shacabba. khilaafyo fara badan baa u dhexeeyay madaxweyne maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweyne farmaajo oo dowladda federaalka hogaamiyo waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirki ka dhacay galmudug labada madaxweyne ay ku heshiiyeen madaxweynaha gobolka Jubbaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada anigoo aan rabo inaan weliba si dhaxgelin arrimaha Soomaaliya maadaama nin Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku baan ahay oo fikrad ma ka dhibanaya ka bacdi marka weli nooma cadaynin madaxweyne farmaajona muuso cadaynin madaxweynaha Jubbalandna muu cadaynin khilaafka hadda jiro intuu ka imaaday ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne axmed madoobe oo madaxka Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan marka hadda ma ogna waxay isku kafeen waxaa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tagin Kismaayo waxaan la socnaa diyaarad adiga aad la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladana khilaafsan taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la'aan amarkii dowladda Soomaaliya horta ani markaan Kismaayo ayay wafdi Kenyan ayaan madax u ahaa waqtigaasna hadda waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimo wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan taas laakiin hore laga soo tagay ka dambe waxaa dhacay wanaag sida aan ogahay madaxweyne farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya wuxuu la kulmay axmed madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Said arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socotay Soomaaliya ay meel isla dhigeen waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo ay siiso Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada markaan saas ku lahay waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga aad la socotay timid Kismaayo waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arinta COVID-19 darteed iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaado oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya jowhar bohodle macruuf qaad wala joojiyay qaad Kenya ka taga Soomaaliya ma hado hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhigi karaa labada dawlad wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya hadda wadahadal u socda waxaan ilaahay ka baryaynaa in wadahadalka uu ku dhamaado mid nabad iyo horumar laga gaaro dhinaca kalena musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya war qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada ardayda qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi Kenya ma aha waddanka kaliya ee lagu eedeynaya inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya siyaasiyiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada khaliijka bishii Juun sanadkii 2017
markaasi oo 4 waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. Qatar iyadu waxa ay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhaxeeyay wadamada khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go'aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan wadanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xiradii tababarka ee wadanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso oo ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. hase yeeshee saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradaasi ka duwan. siyaasiyiin ka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladood ee Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacago badan doorashada Soomaaliya. horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxa ku shuba wadamada Carabta ah ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacag kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, Masaariduna kuma bixiso. labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadu u soo saaraan. Okay, arrin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u cadayso. lacagahani waxay ka yimaadaan baatri inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. lacagaha dibadda ka yimaada inkastoo la sheego haddana dadka Soomaaliyeed wax u muuqda oo cadayn leh wali lama soo hordhigin. bal u cadee dadka Soomaaliyeed waxaad ku cadayn lahayd lacagahaas inay jiraan. lacagta waxaan aad u cadayn karaa lacagta Qatar ayaan aad u cadayn karaa. lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horeysay 16 lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya. lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay waxa weeye 30,000 60,000 40,000 hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay. Okay, tan hadda lacagta hore intaan tan aynaan ka hadin lacagtaasi 8 milyan ee Qatar maxaad ku cadaysay in lacagtaasi soo gaadhay? ma boorso baa lagu soo qaaday oo tuun baa ku galay mise cadayn kale aad u haysaa? tuhun ayaa jira weyn. Okay, laakiin bangiga dhexana soo marin, kasnada dhexe dawladana soo marin. marka sidee bay ku timid wadanka? lacagaha noocaasi kasnada dhexe lama soo mariyo. sidee ku soo galaan marka wadanka? boorso ku soo galaan, boorso. hadda waxaad garanaysaa 2018 horaanteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airportka 10 milyan ku dhaweyd. waa lacag badan weey. lacagtaasi lacag mushaar maaha, lacag kale oo investment maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha. waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u xubeen u isticmaalaan. eedaasi ka sokow Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin cadayn uu ku taageerayo eediisa, inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay'adda NISA ay xilligaasi VOA u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo uu la xiriiray galka baaristu kama uusan soo jawaabin su'aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. hase yeeshee waxaa su'aalaha galka baarista qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabta uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa ayuu yidhi taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya.
safiirka qatar xasan xamse maxamed waxa aan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hantidhowrihii hore ee qaranka doctor nuur faarax jimcaale ee ah in dowladda qatar ay $8 milyan ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. xasan xamse maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan: taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kamana badna ku tiri kuteen ujeeddadeedu ay tahay in lagu sumcad tiro doorka wanaagsan ee qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya. gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tiri kuteenka ka dhanka ah qatar. safiirka qatar ee Soomaaliya xasan xamse maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan: qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khusaysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. tan labaad, dalka qatar sida saldhigga u ah siyaasaddiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taalla waddankaas iyo kuwa caalamiga ah. safiirka qatar ee Soomaaliya xasan xamse maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyey dowladda Soomaaliya. waxa uu ii sheegay in sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda qatar Soomaaliya siisay $20 milyan taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta, waxaana uu intaasi ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay waddada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay. kasokow eedaynta iyo beeninta dhinacyada, idaacadda VOA si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in waddamada qatar iyo imaaraadka carabtu ay Soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho. dhegaystayaal waxaa iga xasuusinahay in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii waraysiga ee aynu u gudbinay. barnaamijkii galka baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.